أستاذ الشيخ عبد الفتاح حسن أحمد شمبرو. أستاذ كسودو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أنه كدولينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. iyadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku xajiyey hashiisa dusheeda si dadku ay u arkaan acmaasha uu samaynayo, iyo sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah ayuu mimbarka koray, salaada ayuu meesha ku dukaday. markaasuu saxaabada u soo jeestay, wuxuu yidhi waxaa sidaan u sameeyey si aad u qaadataan salaadeeda, salluu kamaa ra'aytumuuni usalli. iyadoo xajka uu yahay acmaal dadku ku yar tahay oo laga yaabo cumriga qofka inuu hal mar guto ama sanadkiiba hal mar la aado, waxaa aad u yar marka in faahfaahintiisa iyo fahamkiisa dadkao dhan ay wada ogsoon yihiin. annagoo soo dhoweynayna fahamka ayaa waxaan darsigan ugu talagalnay in aan ku sharaxno qaab muuqaal ah ama baractica ah. ma aha kacbadii oo saxda ahayd, waa tusaale ama wax aan ka soo qaadanay mithaal ahaan. ugu horreyn walaalayaal, qofka xaajiga ah marka uu niyeysto inuu xajiyo oo gurigiisa uu ka baxo, uu doonayo inuu beytka ilaahi aado subxaanahu wa tacaala, xajka waxa uu u xiran karaa oo shalay aan soo sharaxnay 3 nooc: inuu yahay mutamatic, inuu yahay mufrid, inuu yahay qaarin. waxa ugu horeeya uu ka bilaabayo annaga haddeer aan rabno inaan tusaalayno waxaa weeye cumrada. cumrada waxay ka kooban tahay kow, qofka inuu xarmado. marka uu xarmado cumrada uu xarmado wuxuu samaynayaa waxbaa ka xaraam noqonaya, waxna u banaanaanayaan. 3da nooc marka xajka loo xarmado mid kasta mithaal ayaan ka soo qaadanaynaa iyo sida la rabo qofka inuu sameeyo. marka uu qofka doonaya inuu xajka xarmado, waxaa sunno ah inuu qabaysto, cidyaha iska guro, timaha zaa'idka iska xiro, kadibna uu xirto dharkii loogu talagalay xaramka, sida aan ku mithaalin doono tusaalahan oo kale. qofka marka kow uu xarmanayo sidan oo kale ayuu dharkaas u qaadanayaa. tusaalahan marka labada qof kasta waxa uu wataa sida hortiina ka muuqato go-yahaasi cadcad ayuu wataa. wuxuu xiranayaa marka nooca uu rabo qofka inuu xirto. adiga oo kale xajkaaga waxaa la yidhahdaa mutamatic. waxaad dhahdaa xajka mutamatic ayaad xiranaysaa. waxaad xiranaysaa marka cumro, waxaad leedahay labayka cumratan. mithaal ahaan dheh bal. xajkiisa waa mutamatic, cumro ayaa usoo horeyso. adiga oo kale xajka noocyadiisa waxaa ka mid a la yihahdo ifraad. ifraadka marka la xiranayo xaj keligiisa ayuu xiranayaa, wuxuu leeyahay labayka xajan. saas ayaa loo xirtaa. sidoo kale ustaadka xajka uu xiranayo waxaa la yihahda qiraan, oo xajkii cumradii ayaa isku dhex jiro. waxa uu leeyahay labayka xajan wa cumratan. saddexdooda marka nooc waxaa weye 3da nooc oo loo wada guto. marka hore way soo wada xarmanayaan, ma kala duwana. dharku way wada xiranayaan, ma kala duwana. marka ugu horeyso marka garabka lama furaayo. markii dharkan ay xirtaan waxaa ka mamnuuca inay gashtaan wax tolan. waxaa ka mamnuuca inay sameeyaan cidyaha iska guraan. waxaa ka mamnuuca inay tinta guraan. waxaa ka mamnuuca sidaasoo kale in ay cadar iyo wax marsadaan. waxyaalahaasoo dhan waxaa ka mamnuuca guur iyo wax ku saabsan. kulli mamnuuc ayay ka noqonayaan. qofka xajiga markuu oo intaan uu xarmado waxaa u bannaan inuu maalan saacadiisa xirto ama faraantii uu xirto ama ookiyaalo uu gashto. sidoo kale waxaa u bannaan boorsooyinka noocaas oo kale inuu garabka gashto ama suun uu xirto. waxaa u bannaan kaararka dadka xujayda ah la siinayo oo kale inuu xirto. waxba mushkilad ah ma lahan. waxaa kaloo la mid ah wuu qabaysan karaa hadduu u baahdo oo uusan muxuu ahaaye talagal gaara aysan ahayn, iska qabaysan karaa haddii waqtigu ku dheeraado. 3doodaba marka markay ay xirtaan waxaa la imaanayaa magaalada mako. magaalada maka sidaas sheegtay marka la tago horey ma laga aadaa masjidka oo ma waxay tahay qofka inuu horey ka tago masjidka acmaasha cumrada iyo gudagalaa mise waajib miya inuu hore ka bilaabo? jazaak allah khayr shacali, aad u mahadsan. su-aal fiican waay. marka waddanka aad ka tagto safar dheer ayaa la gelayaa. airboodka ayaa cabaar lagu daahayaa, diyaarad ayaa cabaar soo saarnayd. markii meesha aad tagto hotel ayaa lagu geynaya. waxaa laga yaabaa airboortka ilaa iyo hoteelka lagu geynayo in aad loogu dhibtoodo, aad loogu rafaado. qofka markuu tago dad culus inuu wadaa dhici karto,
waxaa wanaagsan inaad shandadahaada meel dhigato, qolka aad degaysid inaad fahamto, dadka lagula dejiye aada ogaato, kadib aad nasato haddaad nasan karto, adoon nastay inaad acmaasha gudato. dadka qaar waxay samaynayaan iyagoo xiiqsan oo rafaadsan ayaa waxay iska soo tuurayaan cibaadadii. hadday sameeyaan dhib ma lahan, waa u xalaal, laakiin inaad nasato oo adoo degan aad soo gudato ayaa wanaagsan insha Allah. baaraka allahu fiik. marka la nasto oo hoteelka lagu soo nasto, qofka soo diyaar garoobo, soo degto uu bilaabo, waxaan aadaynaa masaajidkii ayaan aadaynaa. cumrada marka acmaasha la qabanayo, qofka mutamatica ayaan hadda howshiisa dhamayn doonaa. waxaa waaye ixraam qofkuu samaynayaa, waxa ku xiga waa tawaaf, waa arkaanti. wuxuu samaynayaa sacyi bayna safa walmarwa, kadib wuxuu samaynayaa inuu xiirto ama tinta gaabsado. waxaa fiican sida muxuu ahaay caadiga ah, sunooyin ayaa jiro oo 7 jeer in la dawaafo, inuu rucleeyo, maqaam ibraahim inuu ku dukado, zamzamki inuu cabo. arrimahaas kale waa sunooyin, laakiin waajibka ah arkaanta waxaa waaye ixraam iyo tawaaf iyo sacyi, xalqi iyo taqsiir. gabdhuhu ayaga tinta ma jarayaan, laakiin haafay ka dhigayaan. nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u duceeyey qofka xiirto. culimada laakiin waxay leeyihiin haddii xajkaaga iyo cumradu isku dhow yihiin, si hadhow xajka waxa xiirta u hesho, cumrada inaad qasriso ayaa fiican. intaa marka aan sameyno, waxa ugu horeeya marka ixraamkii way soo sameeyeen. waxa ku xig waa maxay? dawaafkii. dawaafka marka aan samaynayno, waxa ugu horeeya waa inaan masaajidka galno. masaajidka banaankiisa in la dawaafo maaha, waa inaan masaajidka gudihiisa soo gasho oo masaajidka sidaan uu kuu soo koobo, oo gudaha masaajidka ama dabaqa kore ama dabaqa hoose. khaarij almasjid ma la dawaafi karo. markaa masaajidka soo gasho, waxaa ku soo galaysaa lugtaada midig ayaa soo gelinaysaa. waxaad leedahay bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah. adkaartii masaajidka lagu galaaye, allahuma akfir lii danbii waftax lii abwaaba raxmatik. waxa lagu bilaabaya marka masjidka marka la yimaado, masalaada la dukanaa mise dawaafka la bilaabay? masjidka marka lasoo galo, meeshaasi taxiyatulmasjidkeeda dawaaf waay. dawaaf ayaa horey laga bilaabaya. dawaafka marka aan bilaabayno marka, kacbada waa inay gacantaada bidix kaa xigsato, sida u taagan yahay, sida hadda aan u taaganahay. haddii kacbada ay midigtaada xigsato, dawaafkaaga qalad ayuu noqonaya, cagsi ayuu noqonaya. marka koowaad waa in gacantaada bidix kacbada kaa xigsato. marka labaad, dawaafka wuxuu ka bilaabanaya, calaamad ayaa meesha ku taalo, dhulka calaamad ayaa ku taalo oo jaallo ah, midab leh. dhinacana waxaa ku yaalo sidoo kale nal oo kuu muujinayo, wuxuu ku aadan yahay xajarul aswadka iyo calaamadda iyo isku muuqanaya. meesha markaa taagan tahay xajarul aswadkan meesha madaxa la gashanayo oo albaabka ka shaysa, albaabka ka shaysa madow oo dhagax gacanta la gashto. waa istaagaysaa, waa isku aadinaysaa, bismi illaahi allahu akbar ayaad leedahay. hadday suuragal kuu tahay in aad u dhowaato oo madaxa aad gashato, waa samaynaysaa. hadday suuragal ku ahayn, gacantaa saaraysaa, waa dhunkanaysaa. haddaysan suuragal ku ahayn, gacantaa ku ishaaraysaa, ma dhunkanaysid. maxaa dhahnay? hadday suuragal ku tahay, madaxa ku dhunkane. hadday suuragal ku ahayn, gacantaa saare, waa ku dhunkane. hadday suuragal ku ahayn, waa ishaare. haddaa ul haysatidna, maxaa dhahaysaa markaa ishaaraysa? bismi illaahi allahu akbar ayaa leedahay. dawaafkaagana waa sii wadani. dawaafka meeshaas ka bilaabanaya, meeshaas ayuu ka bilaabanaya. waxaa laga yaabaa in meesha culays uu jiro oo inaad saas noqoto aysan kuu suuragelin. hal maraa saas leedahay, si dadka aadan u dhibin, waa soconaysaa. inta hadeer waa fahmnay soo maaha? allahu akbar leedahay. dawaafku wuu bilaabanaya. saddexda ugu horeyso waxaana ka rabaa kow inaan garabka furno. ka hor garabka lama furaayo. dadka waxay ku qaldamaan markii ugu horeyso dharka uu xirtaba garabka u banaysanaya. lama rabo, sidaana iska ahaanaysa. markaad dawaafka bilowdo, saddexda ugu horeyso ayaa garabkana furaysaa. garabka midig ayaa furaysaa. isagaas waxaana la socdo shawd yar, macnaha rucle, sidii qof oo rucleynaya oo kale iska dhigaysaa. hadday firaaqa tahay, hadday roon tahay, firaaqa tahay. hadday gabar ay tahayna, waxba iyada ma rucleynayso. sidoo kale waxaan ilownay gabdhaha oo kale, iyaga dharcad ma laga rabo. xijaabkoodii ay wateen oo gurigooda ugu soo tageen ayay wadanayaan. laakiin shalay waxaan soo sheegnay wax ay ka tagayaan inay jirto. maxay iska dhigayaan shacali? niqaabka iyo qufaazeynka. kuwaasi ma qaadanayo. niqaabka way furaysaa, markay wadankeeda imaatay xiranay, markay yani acmaasha dhamaysatay xiranaysaa. marka dawaafka ayaan bilaabaynaa. wax koob waxaan samaynaynaa, garabka waa inaan furno. garabka oo midigta ah, garabka midigta ah ayaa la furay. annaga Soomaali markaan nahay, inta badan waa naqaanaa. gacanta hoos mari, gacanta ii soo bixi.
oka inta badan soomaalida guntiga ma dhibo laakiin ummadaha kale marada xirashada dhib ay ku qabaan. maanta o dhan waxaa siminaar lagu soo siiyaa sidii marada hoose loo xiranayo, midaa arkaysa ay ka furmayso, midaa arkaysa wax si kale intuu saas usoo xiro saas u xiranayo. laakiin soomaali badanaa guntiga way yaqaana gacantana bana soo ma. marka kan koowaad 3 jeeray ahaa doonaan, 3 jeer idin furnaanaysaa, waxaana aad samaynaysaan shawda samaynaysaan 3 orod inaa ordaysaan oo kale iska dhiga. inta ka bilaabaysaan horta isu dhawaada, xagee ka bilaabaysaan xariiqinta haa kan ku aadan inta soo istaaga. maxaa kaloo samaynaysaan maxaa la dhahaa marka haa gacanta la taagaya, gacanta taaga sida adiga geeskan soo mar waa taaban kartaa hal qof, qofna ha taabto, adigana soo ishaar, adigana ishaar socda. marka wax ordaa iska dhiga tartiib roo leeyahay. waxaa dhamaaday shawdka koowaad, wareega koowaad meesha ku maxaa la sameynaa marka bismi waa ilowdeen salaanta ilowdeen marka xagga inta imaada mar walba wareega ku dhamaado gacanta taagaysa. wareega labaad haddana maxaa la dhahaa bismi illaahi, gacanta soo taago amba taabo hadda u dhowda, qofka u dhow uu taabana, qofka kalena waa gacantu ishaara. bismi illaahi allahu akbar. wareega labaad aa gali haddana, wareega labaad gal rucleen yaraa la jirta 3 ugu horeysa. okay halka ii istaaga marka. waxaa muhiim ah inaan fahmno inta rucleynta ay jirta meeshaan meel yaro iska dhow waaye, meesha way dheer tahay. intaas aan rucleynaya bismillah allahu akbar markaan dhaho halkaan aan socdo maxaa akhrina, maxaa samayna, masalada ugu muhiimsan maxaa akhrina, maxaa samayna. adkaar oo gaar ah oo la leeyahay waxaas keliya hala akhri ma jirto. laakiin waxaa wanaagsan sida sheekan oo kale kitaab duca ah inaad qaadato oo ay ilaahay iska barido. allahuma inii acuudu bika an ushrika bika wa ana aclam wa astagfiruka lima laa aclam. allahuma inii as'aluka ya allah an takfira lii dunuubii. allahuma inii as'aluka ya manaan an tudkhilnii aljanna. allahuma inii acuudu bika min annaar. allahuma arzuqni xubak. waxyaalaha la midka ah ducooyinka. waxaa akrin kartaa qur-aanka, waxaa akrin kartaa subxaan allah, waxaa akrinaysaa alxamdulilah, allahu akbar, waxaa doonta akrin kartaa. laakiin wax u gaar ah tallaabada kasta la qaadayo ma jirto. marka wareegaas horta waa taas waa midda labaad. inta wareega socdoo kale maxaa kaloo howla ay qabanayaan ducada kow? ducadaas waa la qabanaa kow. waxaa kaloo meeshaan jiro wax la yidhaahdo kan waa xijriga soo maha. xijriga rugniga ku xiga waxaa la yidhahdaa arugnu lyamaani. waa intaan la soo gaarin meesha soomaalida xajarul aswadka dhagaxa meesha la dhulkoodo amba la taabsado intaan la gaarin rugnulyamaani ayaa ku yaal. rugnulyamaanigaasi isaga waa la masaxanaya laakiin ma la dhunkanayo. haddii aa gaari weyso gacantaasaa marsanaysaa soo ma jeedid. isaga iyo xajar aswadka inta u dhaxaysana duca sugnaatay ayaa jirto. imaam shaafici uu leeyahay waa wax ugu wanaagsan oo xajka la akhriyo. allahuma rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأنت ودحيس حجر الأسود iyo geeska ka soo horeey intaan la gaarin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. waxaa mulaaxado leh marka dadka waxay aad isugu dhibaan inuu qofka xajriga madaxa gashto, dadaa ku rafaado, dadaa ku dhinto. waxay dadka qaar isku dhibaan in muxuu ahaaye derbigaan oo dhan ay masaxdaan. marka derbigaas oo dhan wax la masaxanayo meeshaas keliya ayaa ka jirto. intaa marka wareega wadno waxaa kaloo mulaaxado leh, waxaa jira meeshan wax la yidhaahdo xijri ismaaciil. xijri ismaaciil marka kacbada laga soo tago albaabkeeda iyo miisaabkii iyo waxyaalo badan inta ku yaallo, meeshaani kacbada ayay ka mid tahay. waa meel weyn oo kacbada saa ugu dhegan. meeshaan haddaa marto dawaafkaaga ma dhamaystirna. waxaa la rabaa inaad kor ka martid. dadka qaaraa jiro inta maraayo, inta inaad gasho oo 2 ragca ku dukato way fiican tahay. laakiin inta inaad ka martaa la rabaa marka aad dawaafayso. haddaa inta marto dawaafkaas ma jiro, waa lagu soo celinayaa. wuxuu raacsan yahay kacbada. kacbadu raacsan yahay. sidaas daraadeed waa in la dhamaystira kacbada oo dhan. kacbada oo dhan waa in la dhamaystira. tawaafkina ku dhawaystira. qodobkaas waa fahanteen soo ma. waxaa kaloo iyadana jirto oo muhiim ah, marka aad soo aad xagga ka soo baxdo. saddexda hadday ii dhamaato. saddex markay ku dhamaato. markay dhamaato maxaa la sameynaa? garabkaaga waa iska daboolanay. sidaadii hore caadiga ahayd isaga noqonay. sidaasaa ah sunnadii. sida sunnada saas waay. inta saddexda ah ayaa garabka kuu furnaanaya. inta ka dambayso garabkaaga waa kuu daboolan yahay. howshaada wareega iska dhigay. su-aala imaatay marka, waan wareegtay waxaa kala garan weysa talow 7 maad samey mise 6 mise 5. maxaa sameynaynaa? waxaa sameynaynaa sida salaada oo kale. haddaa garan weyso 4 maad dukatay mise 3 salaada duhur, maxaa sameynay? midaa ku kordhine sujuuda soo ma ahayn. tanna yaqiintaa ku dhisay.
shan saddex iyo afar saddex iyo afar saddex ka soo qaadayna shan iyo afar shan iyo afar afara ka soo qaadayna laakiin ma banaan inaad dhahdid soo bilaaba toddobadii aan dhammaystay kolle inta halka tegi lahaa hal ixtiyaadi ku dara ma laga yeelay hal oo maxaa yeelay halkan aad ku daraysid sideedaa ka dhigtay socodkii Lama haddaaba og tahayba inay toddobadii ku tahay khalaas wax kale ku dari maysid hadday ka waran aan xaajo iyo kaadi qofku u baahdo amba weysada ka burto okay laba tan mulaxada kaadida marka tan hore hadduu kaadi u baahdo ha maalan qofkii qof waayeel, waayeel waaye jiran amba sokor uu qabi karaa xaajo kala qaban karto isagoo 3 jeer sameeyey markii afraad aa la qabtay muxuu sameynaa daruuro waaye uu baxaya acmaashii soo dhamaysana waa imaana halkiisu kasii wadana intuu ka bilaaba meeshii u joogtay tirada uu maraayey uu ka bilaaba ka bilaabana haddii laakiin mobile uu soo dhacay iyo qof uu la socdo waaye raadiyo iyo oo meel kale ka dhex baxo iyo markaas wuu soo bilaabana leanna saddexdii hore kama sii dhisaay kama sii dhisay haddii ka waran masalada ku saabsan cariiriya ka jiro cariiri qoysas dhana rag iyo dumar ah socdo sax soomaalidana masalada oo weysada waxaad ogtahay mowqif Dumar adag ay ka oo taagan. tahaarada way fiican yihiin dhinac kale laakiin mowqif adag ay joogaan dad badan aan ku dhibtooday maxuu sameynaa hadday weysada ka burto amba lamsi uga burto amba kale ay uga burtoba Horta, xadad ka yimid meeshaas markaad joogtid weysada taabashada ma kaaga burayso xataa dadka markay baxayaan hataa waa loo sheegaaba sababtoo ah markaad haweena itaabata dhahdo lugahiyaa kuu furan garabkiyaa kuu furan haweena itaabataa tiri waa lagu taaf waa baxda waa soo weyse qaadatay meesha haween ma ka dhamaanayaan maxaa sameynaa haddana ma mar kale haddana haweena itaabata ma soconayso Okay. masalada iyada masale ahaanba loo yaqaanay asal laakiin waxaan ku dhisaynaa in duruuftaas duruuf yani ayaga dadkan soomaalida oo dhahay waa iga burtay anaa warkooda ku dhisayna hataa meesha duruufa ka jirto oon kuu suuro gelinaynin inaad soo weyse qaadato ama haddii kale inaad isduubduubto oo waxay noqonaya sidaas aad dhahdo suuragalna meesha kama aha qodobkaasna waa qodob aan rabay inaan baraarujiyo waxaa kaloo muhiima iyadana markii toddobada ay kuu soo dhammaato acmaasha aad soo Intee ku dhamaysid dhamaanee? waa inaad mar walba calaamadii gaarto waa haddii meeshii adoon gaarin rugnigii gaarin wayna dhacdaa dadka so usoo wado kii toddobaad markuu meelaha maraayo rugni yimaaniga albaabku iskaga sii baxa maxaa meesha jira marka kii toddobaad waa kaa dhimaya waxaa la rabaa marka inaad kii toddobaad wareegtid intaa markay noo marayso 7 jeer ducada adkaarta waxa dhan waa samaynayna maxaa markay dhammaato looga baahan yahay oo xigo haddii tawaafkii 7 jeer la tawaafo kacbada saddexdoodana ay saddexdii kale xirteen maxay qabanayaan wax kale farqiga waxa ku xigo ilaa hadda isla soconayaan hadhow way kala bixi doonaan markay acmaashan dhammaystaan way soo baxayaan waxay imaanayaan meel la yidhaahdo maqaamu ibraahim ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi waاtakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa maqaami ibraahim ayaa la tegaya meel lagu dukado waaye marka maqaam ibraahim muuqaalkaasaan mithaal ahaan ka wadnaa 2 ragcan ku dukanaynaa wuxuu ka soo horjeesan doonaa xaj ismaaciil kusaas ugu aadan yahay oo dhaxagal ugu aadan calaamadaas marka waxaa ku dukanaynaa 2 ragcadood midda ugu horeysa qul ya kaafiruun lagu akrinaa alxamdu qul ya kaafiruun tan labaadna alxamdu iyo qul wallah meesha su-aal imaata marka waxaa dhici kartaba meesha 1 milyan iskugu imaatay masaajidka waaba ku aadi weysa shardi ma aha meel alle meesha doonta aan 2 ragcadood ku dukanay laakiin sida fiican daawa firaaqo u heli karto waa inaad soo baxdo oo timaadid meeshuu ku yaala aad tagtid maqaamu ibraahim hortaada ayuu saas ku noqonayaa soo ma jeedid meeshaana istaagaysaan 2 ragcadood ku dukanaysaan 2 ragcadood markaad dukato midda koowaad qul wallaha akhris qul ya kaafiruun tan labaad maxaa ku akhrisay qul huwa allahu axad marka tan waa dhamaysanay markaa dhamaysano 2 ragcadood dukato waxaa imaanaysaa meesha laga cabo zamzamka biyaha zamzamka tagaysaa biyihii zamzamka imaanaysaan biyaha zamzamka inta noo keen مثلا حق عاق كرسي نوري هل كانت من مثلا بيه زمزمك سيدا السنة وحوايه فضل سيدا السنة وحوايه إن بيها زمزمك مدكت الوعبه بسم الله لله إنا فريسته وناكسنت هاي سيدا في عن وايه هدانا فريسن كرن استاق كعبته سيدا وكلا وحا يدنا سنة بيها زمزمك مركا أدعابيسو إن أدنييسته النبي عليه الصلاة والسلام وحير ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم لما شرب له بيها زمزم كوحا أدو عبيسد علم إيا عافمات إلهي إنو كوسيو إلهي إنو محوها هاي داوه دارة الداوة إلهي كاقدقو هذا وحا الله وحي قفك إلهي وكبريو يا إلهي وحاك الله إذن الصناعة التضلع وحلي راضو تضلع معنى هذا ومحي
biyaha zamzamka inaad u cabtid si zaa'id ah inaad u cabtid cabid oo wabaxida ilaa Soomaaliya iyo feeraha ay kala qadmaan inaad ku wabaxdo aad uga cabtid la rabaa si fiican inaad biyaha uga dharagto uga wabaxdo oo yani muxuu ahay cokanaan aad gaarto marka taana waa sunnada biyaha zamzamka marka la samaynayo intaa markaa marayno xajkeena meeqa nooc uu ahay 3 nooc 3 nooc uu ahay tawaafkii Adiga waxaa noo muxuu ku dhamaaday adiga waxaa ahayd ifraad adigana waxaa ahayd mutamatic adigana waxaa ahayd qaarina ahayd maalan soo ma ahayn labadiina idinkoo dharkiina qaba oo sidiina ah meesha iska fadhinaysiin xagga mar ilaa laga gaaro labadaas waa mufrid iyo qaarin ilaa xaj laga gaaro saas la ahaanaya oo maalan waxay haddoo kale tageen maalmihii ay bishu bilowga tahay bisha bilowgeeda tageen Aye. ilaa sideedaad laga gaarayo dharkooday wadanayaan saasay ahaanayaan oo way xarmanaanayaan Way xarmanaanayaan. acmaashi qof dad ku guda jiro ahaanay ahaan intii mamnuuc ka ahda mamnuuc ka ah waxaa islaantiisa u banaan iyo- marka annaga hadda sacyiga aadi rabnaa soo maha sacyiga hadda aan aadayno hadday rabaan way samayn karaan hadday rabaanne ma samaynayo maxay qabanayaan marka maalmahan ay fadhiyaan maalmaha ay fadhiyaan xuska ilaahay iyo masaajidka ay laazimaan qur-aanka ay akhriyaan ilaa waxay sugayeen yowmu tarwiya ay sugayaan Waa maalin sacyiga marka sideedaad. hadday sameeyaan ayaga dawaafkooda hadda ay gudanayeen dawaafulquduumkii u ahaa sacyiga hadday sameeyaan hadhow dambe way iska dhaafayaan haddii kalena hadhow dambe u dhiganayaan sacyiga bayna asafa walmarwa walmarwa dawaafka ma Shaqo kuma leh sheega tawaafkii iyo maqaam ibraahim iyo biyihii zamzamkay cabeen meesha ayago waa meeshay ku istaagayaan ninkaana mutamatic ahaa isaga waxaa laga rabaa inuu sacyi aado labadiina marka xagga iska fadhiista sii wardiya inta yom xajka inta laga gaarayo haye waxaa rabnaa marka kacbadii waa ka baxnay hadeer kacbadii waan ka baxnay haddii aan dhamaynay tawaafkii aan dhamaynay salaadii labada ragco lagu dukanayo maqaama ibraahimka biyihii zamzamka cabeen qaarinkii iyo mufridkii naga baxeen mutamaticii waxaa u soo haray inuu sameeyo sacyi marka waxaan rabnaa mutamatica sacyi siduu u sameynaa iyaga nafsadooda hadday rabaan sacyi way samayn karaan hadday rabaan xajka dib u dhiganay marka hadda waxaa niyeysanay inay xajka hadhow markaan samaynayno Dib u dhigtaan. inay sacyi dib u dhigtaan hadda mutamatica marka rabnaa inta imaam mutamatic markuu xagga ka soo baxo wuxuu soo aadayaa buur la yidhaahdo magaceeda safa ilahay qur-aanka wuxuu ku yidhi ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaah waa laba buurood safa iyo marwa ayaa la kala yidhahdaa waxaa la rabaa marka ninkii mutamatica bilaabo. ahaa wuxuu dul tegayaa buurta safa ayuu korkeeda tegayaa waxaa laga yaabaa hadda inaysan wax badan uga suuragelaynin oo buurta kacbada u jeesanaya sida hadda kacbada noogu aadan tahay soo ma jeedaan ayay kacbada kugu soo aadaya hadhow waa inaad iyada raadsato kacbada inaad raadsato oo aad buurta markuu fiirsato. koro qiblada oo u jeesana oo kacbada ka xigta qiblada u jeesana gacmaha ayuu kor u taagaya laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiit wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaaha ila allah anjaza wacdah wanasara cabdah waacaza jundah wahazama alaxzaaba waxdah adkaartaas ayuu akrinaa 3 jeer ayuu ku celinaa kadibna ilaahu baryaa wax alla wuxuu ilaahay ka rabo Danihiisa. adduun iyo aakhiro danihiisa ayuu samaynaa Oo intaa weydiina. markuu sameeyo oo ducadii u dhammaysto wuu ka soo degaa marka buurta safa wuxuu soo aadaa xaggaas iyo marwo waxaa jirta marka meel dhexe oo markii hore buur yar ahaan jirta oo bacaad ahaan jirtay oo hadda aan lahayn midab cagaaran nal cagaaran inta ka shidan dhulkan nal cagaaran hoosna cagaaray leedahay markaa meeshaa marayso waxaa samaynaysaa marka ramli wax la dhaho ruclayn oo sidii hore oo hadda dawaafanka ku jirnay wax yar ka badan intaa marka amarayna marka horolaynayna halkaa saas u soconaynaa marka inta gaarno waa joojinaynaa soo ma jeedid meeshaa marka aan marayno haddii qof dumar ay tahay iyada waxba ma ordeyso dumar hadday tahay sideeda isaga soconaysaa xijaabkeeda xushmadeeda isaga soconaysaa raggaa ruclayna raggaa ruclaynaya inta markuu soo baxo haddana marwo imaado marwo haddana buurta koraya kacbada sii hore ma ugu aadeyso waxbaa ka qarinayo laakiin gacmuhu kor u taaga iyadana intii oo kale jihadii kacbadoona u jihada jeesan. kacbada u jeesana intii uu samaynaa ilaahu baryaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah adkaar badan iyo duco badan u akhrina markuu akhriyo haddana wuu soo baxaa maxaan ka talinaa marka markaan inta ka tago safa oon marwo tago xagga markaa ka Musliya soo mise baxdo ji- oo inta aad timaado waaxidaa kuu dhammaaday toddobadii wareeg midaa ii dhammaad marwo markaa ka tagto oo safa aan u noqono 2 lama dhahayo
min safa marwa ilaa safa waaxid ma dhehaysid dadka qaar saa sameeyo 14 ku noqonaya marka waa badaalaya qofkii dawaafka laakiin wareega hal waxbu ahaa tan min safa ilaa marwa waaxid marwa ilaa safa wa اثنين waa fahamta soo maahan kadib marka haddana meesha markaa maraysid nafsa shay sidaa sameynay waa ordeen okay waa saasaa leedahay rucleyn waa istaage haddana waa socon xaggaa tegey 7 jeer marka waxaa sameynaysaa rucleynta marka meeqa jeer 7 jeer ma la rucleyna inta jeerba aad meesha maraysaba waa rucleynaysaa mar walbo meesha oo mar walba calaamad rucleynta soconaysa ragga ragga waa mahadsan dumarku ma jiraan marka haddii la dhamaysto inta markuu dhamaysto hore u soo baxayaa markas uu ducaysanaya soo maaha xaggu soo ducaystay xaggaanuu yimid waa ducaystay xaggaasuu tagay waa ducaystay xaggaanuu yimid waa ducaystay xaggaasuu tagay waa ducaystay xaggaanuu yimid wuu ducaystay tii toddobaad markuu xagga tago tii toddobaad markuu maraayo ma ducaysanayaa maya ma ducaysanayo markan toddobaad horlo usii baxa albaabaa jira meesha ku yaallo albaabkaas kasii baxa maxaa noo dhiman marka arkaantii cumrada mees waxaa ku dhammaaday marka waxaa noo dhiman sacyigii oo bayna safa walmarwa oo dhammaaday qofka intuu sacyi ku jiro hadduu daalo biyima iska cabi karaa ahaa waxyar ma nasan karaa ahaa haddii waysada ka jabto haddii maalan socod meesha orodkii aa iloodid ma lasoo bilaabaa haddana maya ma ujeedaa waysada hadday ka jabto waa soo weyse qaadanaa sidiisu usii wadanaa waadix sooma intaa markaan soo dhamaysano qofkii marka wuu soo baxayaa wuxuu imaanayaa meesha baalbeeriyaasha ku yaalaan inta fadhiiso baalbeeriyaasha imaanaya ma fiicno in aad dadka raggaan ka hadlayna ragga waha ma fiicno inaad tinta ku jarato meesha dadka wasaqda ku halaynayaan kacbada ilaahay waaye masaajidkaa la joogaa muslimiinta meesha wada maraayo dad waxaa jiro si sharci darro ah tinta meelaha ku jirto barbiyeeri imaanaysaa tinta ama waa gaabsane ama waa xirane labadaas ha ku banaan yaa fiican marka sida fiican nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahayow kuwa xirto u naxariiso saxaabada waxay dhaheen kuwa gaabiyana ilaahu kuwa xira u naxariisto rasuulka allow kuwa gaabiyana ilaahu kuwa xira u naxariisto rasuulka allow kuwa gaabiyana iyo kuwa gaabiyo meesha maxaa ka fahmaya marka waa ka dawatuur soo maahan marka in la xirta culimada marka waxay leeyihin haddii xajka uu kugu soo dhow yahay waa iska gaabsane hadhow dambaa xirane marka dadka qaarkood mutamatici markuu dhamaysto mutamatica markuu dhamaysto wuu baxaya ninkan khalaas waaye xalaal ayuu noqday macnaheed waa maalinta maxay koowaad oo maalan oo bishii xajka ay dhalata dulxaj haahay uu dhamaysta raggii kale laga beriyo nasana marka ilaa 8aadka ninkani marka xalaaluu noqday wuu baxayaa wuxuu aadayaa hoteelkii u deganaa wuxuu tegayaa dharkan iska dhigayaa dharkiisi caadiga ahaa uu xiranayaa masaajidkiisa iska imaanayaa acmaashiisii kale oo cibaadada ahayd uu daa'imaya wax dharkaaga xagga tag maxaa ka reeban wax kasta oo xalaal xaaskiisa oo xalaal ah inuu guursado wax alle wixii xaaraamka ah intuu jaran karaa cidiyuhu guri karaa xaasuu samaysan karaa arrimihii kale laakiin labadii kale oo xajkooda mufridka iyo qaarinka ahaa iyaga weli waxay sugayaan inta laga gaarayo maalinta 8aad yowm athaamin yowmu tarwiya loo yaqaano ayay sugayaan ninkaas kale marka anagu nala mid yahay hadeer laakiin labadaani xajkooda ay xarman yihiin waxay samaynayaan marka inay adkaartii iska sii wadaan haddii dharkan ninkaas oo xalaal noqday tusaale maalan mutamatica ah soomaalida waxaa mashquuliyay fadhi ku darar siyaasad qabiil iyo kala qaybsanka waddanku kala qaybsan yahay soomaalida waa ku mashquulaana la yidhi ninkaas maadaama la yidhi waa xalaal noqotay ma wuxuu u xalaal noqday xaaraan oo dhan mise xalaashiisa u xalaal noqotay xalaashiisii keliya meesha xaajiu noqday cumru ku jiraa ninkan sidiisa hore kusoo noqday dharkiisa caadi wuu qaadanaa hadhow markii acmaash waxaa laga rabi doonaa xajka la gaaro dhiigaa laga rabi doonaa waa inuu dhiig gowraco faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi hadyaa laga raba maalintuu gowracayo waa maalinta oo acmaasha u dhammaato xajka uu gowracaya hadda marka si fudud soomaalida waxaa la bixiyaa maalinta la qabanaya waxaa weeye ran xad waaye maalinta ramyiga markaa samaysid waa gaari doonaa naxrigaa kugu xigo dawaafaa ugu xigo khalaas sacya ugu xigo wuu ka bixi doonaa ran xad dawaafuu samayna halkee waxaa waday labadan nin marka ninkaa marka xalaal waa xalaala marka laleeyahay dadka soomaalida sida cali sheegaya maqaayadaha hor fadhiisanayaan qabiilkii iyo qurunkii iyo wixii wadanka ka socda waxaas ku mashquulayaan lama rabo waa inuu cibaado iyo ilaahay subxaana watacaala baryadiisa iyo muxuu ahaye saliga nebiga iyo adkaartii inuu ku dadaala la rabaa sida labadan kale ay yihiin waxaa marka laisugu imaan doonaa maalinta 8aad
raggan marka saas ayay ugu sii jiri doonaan. marka labadan qofood marka yowmu thaamin la gaaro ninkan wuu bixi doonaa, dharkiisa soo xiran doonaa. maalinta sideedaad waa acmaashii acmaashii xajkaa bilaabatay. ayaga marka maxaa u banaan? waxaa usii banaan dharkan ay haystaan. waa fahmi kartaa qof maanta ilaa iyo carafo la gaarin dharkan caad wuu wasaqoobaya, wuu iska bedeli karaa, go' kaloo xiran karaa, go' kaloo kuwan kula xiran karaa, wuu qabaysan karaa. dadka waxaa arkaya kii wataa ku taagan u la yimid markaasuu gudud noqonaya ku wasaqoobaya. marka shardi maaha, waa la go' bedelan karaa, waa la qubaysan karaa, waana qofku qubaysan timaha uusan jaranaynin, timaha ma jaranayo, wax oo timaha u keenayo dhibaato iyo cidii gur iyo ma samaynayo. arrintaas marka waxaa waaye acmaasheena sidaa ku dhamaysanay. wixii ishkaal ama wax dhaco waa saxayna insha allah. maalinta sideedaad maxaa la qabanaa? maalinta sideedaad ayaa marka ninkaana uu dharkiisa soo xiranaya. yowmu thaamin ayaa la dhahaa, yowmu tarwiya ayaa la yidhahdaa. waxaa waye maalintaas waan baxaynaa, waxaan u guuraynaa, nin walba hoteelka u degan ka guurayaa, xaj ayaa la xiranaya. raggan xajaa u xiran ba ayaga, mid xaj cumra isugu dhex jiro, midna xajkiisa waa u xiran yahay. ninka mutamatica ayaa xaj xiranaya maanta. xajkiya marka soo xiranaya mutamatica maalintaas muxuu xaj waa labayka xajan, labayka xajan uu leeyahay, cumradii waa dhamayst, xaj uu xiranayaa. labayka xajan ayuu leeyahay. waa maalinkii sideedaad. waxaa la aadayaa xaggaas iyo mina ayaa la aadayaa. halkaas ayuu joogayaa oo salaadii duhurka iyo casarka iyo maqribka iyo cishaha iyo fajarka uu ku dukanaa. mina lagu dukanaa, mina lagu dukanaa. salaadaha duhurka iyo casarka waa lasoo gaagaabinaa si cibaado badan iyo qofkii waqtigaana uu ku dukanaa, waqtigeed ayuu ku dukanaa. duhurka ku dukanaa 2 ragco, casarka ku dukanaa 2 ragco, maqribka ku dukanaa 3diisa, cishuhu dukanaa 2 ragco. wuxuu dukanayaa salaada subax. inta aan salaad subax la gaarin marka carafaa la aadaya. dadku waxay aadayaan salaad subax, dadkii masaakiinta ah iyo dadka culus way. laakiin dadka kale salaad subax waxay dukanayaan, dadka ducafada ah. laakiin dadka oo awoodooda fiican tahay oo ayaga nadiifka oo dhalinyaro ah waxay sugayaan ilaa iyo qoraxda ay ka soo baxdo, salaad subax ay dukadaan, minay deganaanayaan. kadib duhurkii marka la gaaro qoraxda soo baxdo, salaad subax dukadaan, wardigooda dhameystaan, ay baxayaan. waxaa la aadaa عرفة التلبية soconaysa, talbiya socota labeyk allahumma, waxaa socota labeyk allahumma labeyk, famina almukabir wa mina almuhalilu, yani qofaa takbiirsanaya, qof tahliilsanaya. waxaa la aadayaa marka carafa la aadaya. marka yowm lcarafa iyo acmaasha la qabanayo iyo maalmaha kale si tafsiil ah ayaan fadhiga uga sheekeynayna. jazakum allahu khayran, aad umahadsan tihiin. ilahay waxaa weydiisanaynaa marka camalka inuu ka dhigo camal khaalis ah liwajhi lkariim. waxaa mar labaad iyo mar kale soo jeedinaynaa in qof kasta oo xaaji ah ama muctamir ah in uu camalka barto si saxa uu u barto, oo ilaahay subxaana wa tacaala camal aan sax